arrintan bilan laga soo geliyay maanta cadaanka bilan bay u doodayaan Soomaalidana bilan bay caynayaan dadkii u soo dadaashay waa kuwe waa Soomaalida cid kale maaha waa muslimiinta cid kale maaha haddaba sidaan u aqli gaabanahay baan ku sheegayaa hadal la soo geliyay baa ilaa seetay loo bunaaniyay lagama fikirin gabadhan ilaa intee sano arrintan ku jirtay maxay sameeysaa bulshada maxay u tartay wiil badan waxaan arkay oo si walaahi ah oo igilnay meelaha ka soo hadlayo oo gabadha caynay iyagoo ku liidayo dadka cadaanka guursanayo walaal idinka meelaha drugs laga dhiibaayay amar dad madax neergistaaga bacdan qaado orda la idinku dhahay gabadhan jaranjaray kortay meel aadan idinka wiilin ka digi karin ka degtay bacyaa aad qaadaysaan aad la ordaysaan afar la saxiibinaysaan criminality iskaga soo bax kus qofta idin doodaysa xaquuqdiinan u doodaysa isku xishooda horta waxa muhiim ah qofka raba in uu bilan wax ka sheega horta waa inuu bilan yaqaano bilan Soomaali kaliya ma doodo laakiin bilan way ka weyn tahay bilan waxay u doodaa oo qofka muslimka sheegto oo dhan bay u doodaa Arab Soomaali wuxuu doonaado qofka ma aragtay xuquuqdiisa la dulmiyo ee naibka loo muujinaya ama waxa nationalist la yiraahdo ee laga xigsanay meesha uu ku nool yahay la tusay inuu ajnabi yahay ay u doodaa ilaa iyadoo yarbay bilan xijaabka u doodi jirtay iyo xaq ay dumarku leeyihiin xijaabkooda haystaan xaq ay u leeyihiin diintooda ilaashadaan doodo fara badan bay ka qayb qaadatay SVT-ga after blood cakes present-ka iyadoo yarbay saameyn yeelatay waxay saameyn ku yeelatay wax positive u aha bilan wax ka jeedaa sidoo ogtahay baad qoys muxtarim ah abo wax bartay professor ah doctor ah ma aragtay cilmi baare ah waliba aqoon reer ah bartay bulshada Soomaalida aanay inta badan baran waxay ka soo jeedaa hooyo aad u naxariis badan oo bulshada Soomaalida caawisa Ilaahay khayr siiyo maamo aad u fiican aad u wanaagsan qalbi fiican dadkoo dhan suugu yihiin dadka aad u caawisa positive ay ummadda Soomaaliyeed u sameysay iyadii qoyskeeda lama soo tirin karay markaas qofka Soomaaliga ahi bal inta aanu cararin ee aanu la boodin waryar oo maalayacniya bal horta waa inuu ogaadaa meesha ka soo dhigay may cidays hayaan horta bilan waay kamid adiga ku nacab oo idiid wiilka bilan ka soo hadlay waa wiil qaybta cusuriga ka socdo wala wada og yahay yani qofkii kala socday Sweden wada og yahay ma fahmaysaa wiilkan action ku dheelay waa la fahansanahay aadiya hadalka sidoo u dhigay inuu qabiili wax walba soo qaatan waa fahansanaa meesha hadal ku waday yani basically gabadhan jaran dheer bay koraysaa gabadhan Sweden wayna gaadhaysaa gabadhan Swedishkina way ka sasisay haddana still naag qamaarkeeda wadato yani dhaqankeedii diinteeda maysan ka tagin intaana waxay u doodaysaa dadka islaamka waxay u doodaysaa ururada islaamka oo isha meelaha sameystaan waxay u doodaysaa masjidada weerarka lagu qaado waxay u doodaysaa quraamada meelaha lagu gubayo aadiyaad hal eray baa gabadhan laga soo geliyay walaal u fiirsa hadalkayga hal eray baa gabadhan laga soo geliyay halkii erayoo laga soo geliyay wixii Faarax Seeflabood iyo wixii Soomaali joogay hal maray wada kicin wallahi maanta maxamed waxaan ogaaday Soomaali dad wax bartay inaysan ahayn maanta waxaan ogaaday Soomaali wax ka jaaysan waxa way for the last ilaa 1970 like the research laga sameeyay dadka Soomaaliga laba marka saddex qaybood loo qaybiyo laba qaybood oo kamid waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan وإيك no sida loo hadlay bartaan sida loo nanaaleeyay bartaan source of criticism marshal critique ma yaqaanaan Ilaahay kama baqdaan ma aragtay waxa weey the only thing ay yaqaanaan waa few radis waxaana few ku raadiyaan waxa in ay negative side ka mar walba raadiyaan laakiin waa wax walaal hadda sameynaa waxa effect u sameynayso يعني ما فيك وحيالها أنا قاعد يجحنا جير والبلان أنا ما بكون صونا وحدة ونوجا كم سوقات ديرهم أهلهم قفنا سيدولات كتير يا وحي ونكسنا وصو سنة بشكل ما واحد ده بالصومالي قبل ما لي لكن بلان ما كلية أنا بلان هم كسر كوبي بالصومالي وكلية بلان هو كسر صعبان كلية صومالي أنا ما دودس بلان وحود دودس عددك مسلمين طبعا وحود دودس أجنبي قرن وحي كسر ده كنا السنادان بدوني ساسفيد يا صعب بركة هو بلان ما أعرف واسي وشيء well known مجرنا سماها كلية Soomaaliga hadaan garanay faa'iido iyada u leedahay laakiin waxa jira kumanaan umado garanay faa'iido ay hayso markaas shees ma garanaysa way ka weyn tahay bigger than this sheega Soomaalida kaliya that's why waxa iga xanaajinay waxay tahay Soomaalida in magaceeda ay soo qaadaan ma rabin anigu waxa ba aaminsanahay way ba ka sareysaa
ها وناق wax baratay وناق doonayso xididaha iyo inay la tartanto ishaad iyo cilka iyo caadka ma fahmaysaa wanaaq meel gaartay dhoocin walba oo aan gorgorada iska soo siibina gorgoradeedii gorgorada waalidkeeda ku dhagaan nin walba oo aan buug qaadan oo daraagiska madax looga istaagi jirna gorgoradeeda ku dhagaan yani waxyaalaha iga xarajo war wax markaa sameynaysa xataa waa inaad ogaatid maxay saameynaysaa waxaana ku hadlaysa adduunkan ilaahay horta dadka islaamka wuxuu abuurtay inay ilaahay caabudaan soomaalma khalaqal jinna walaysa ilaa liyacbudu marka taa laga yimaado adduunka waa inaad wax kusoo kordhisaa oo adduunka taariikh kaga tagtaa taariikh positive markaad samaysana wuxuu khayrkeedii wanaageeda marka gabadhan yar wax positive lagu bartay alxamdulillah wax wanaagsan baa lagu bartay marka miskiin bal eeg ilaahay baa ku dhashay mid dalkii jooga oo aan saameynayna ku lahayn nolosha ay ku nooshay aan wax ayaalka nacnaci energy magaranaysaa dee xukumaayo ka haya so marka dee xukumaayo waxan waa iska waa adduunka dee waxan way ka waa lagu afar shal weero wareejiyo reaction laga sameeyo way ka dhacdaa laakiinse for the last xaqiiqada timaada runtii inay guulaysataa exactly iyadu waxa ay wato fashininkii researchka samaynayso iyo in magarasa la baqageliyo of course waa lagu baqagelinayaa qof ajnabi asalkiisu yahay tahay qof magarasa laga badan yahay tahay marka dadkeeda loo soo maray Soomaaliya hooyadiina dadkeeda waxa ka badan dadka ajnabiga taageeraya ka badan dadka ajnabiga kala taageera carabtii baa u istaagtay bilan hadda Soomaalidii baa ka soo horjeesanayso oo aan sida wax loo qoro iyo sida aan wax loo dhiga aan garanayn Soomaali baa ka hadlayso xataa magaceeda garan maayaan gabadhan meesha ka imaatay ilaahay wajigii wallahi ma garanayo waxay sameysay meesha aad garan maayaan may wax allaala waxay u kordhiyaan mooyaan waxba kama hadii xukmaayo ay yareynayaan allaala waxay u kordhiyaan mooyaan wax ay ka yareynayaan male she's the best waxa weeye it's so sad it is so sad wallahi oo billahi oo tala it's so sad aniga waxyaalaha aadka social media isma siiyo laakiin aad baan ugu qaaday selma ka doctor la yiraahdo bahal toxic ilaa iyo for the last magarasa tuunaydi buu halka maartay obsessive ku yahay bilan tiktokiisana uu qabsanaya he's an idiot block sar wallahi billahi kaasoo midhan baa Soomaali ku jira waa munaafiq keewayaan doctor baa ugu qoran okay so markaan arkay marka dambe wax soo qoray saabuni soo qabo wallahi maanta si fiican discuss gareynay waa mid raba in aad uga tagto meeshan ku nool yahay waa mid ku tusay inaad tahay adoon yaro ajnabiyoon halkan xal iyo xuquuq lahayn iyaduna kaasay ka hortaagantaa so marka adigoo markaagii horeba dalkaagii ka soo cararay oo qurbo soo cararay oo magaranaysaa immigrant lagu leeyahay oo ajnabi lagu leeyahay oo diintaadii lagu khalkhal gelinayo inaad adee xukmaayo kii intaaba ku muujinay aad naxariis ka dooda waxa loo yaqaano Stockholm syndrome qofka dhimu jecel yahay marka Soomaalidu waxa allayaal ay ka qaadi karayaan ma jirto waxay ka qaadi karaan maxamedow magacan ilaahay baa bixiya magacan ilaahay baa bixiya maxamedow ani midaa ku fikiray horta ishaag wiilka bilan ka soo hadlay waa wiil qaybta cusuriga ka socdo waa la wada ogyahay yani qofkii kala socday Sweden Queen bilanay maanta waxaan ku leeyahay dadaana ku gaareen baa ka hadla waxa horta hal mid horta waan ku faraxsanaa Soomaalidii aad u deedaysay inuu ahaa Soomaalidan dadka Sweden jooga oo dadka kale taa meesha ku garanayeen dadkan ba u doodeysay dad waxaad aragtay oo cabaan ah oo aan meel iska soo saarin baska marka telefoon ku hadlayaan waxay u jawaabayaan dad kale oo dhanka kala jira haddana iyagoo ku ceebeynaya baa walaal dhaxda u xiratay waxaa tiri Soomaali meesha iga jirta anaa garanayay anaa Soomaalida u istaagaya Soomaalidii baa u soo istaagtay uraro badan oo la sameeyo Islaamic baa ka dambaysa naagta waxaa tahay cusurnimada madaxa kaga istaagtay naagta waxaa tahay Sweden dadka cusurnimada u taagan qalqal inay gelisay heer waxay gaareen ay ku fikiraan bal naagtan wadankay kiimad Soomaaliya kiimad haddaba Soomaalida dhankooda ka soo maran maadaama oday dhanka ka hesho